dalkan aynu ardaa wadaagtanahay ee Kenya waxa ku taala hara weyn oo la yiraahdo Turkana waxa ku dhex taala jasiirad yar oo volcano oo aanay cidina ku noolayn waxa lagu naanaysaa jasiiradda aan laga soo noqon waxaana naanaysteeda ka dareemaysaa inaan cidii gashaa aanay dib uga soo noqonayn waxaana magacan loogu bixiyay waxa jira sheekooyin badan oo oranaya qofka kala marnaba kama soo noqdo jasiiradan laakiin sanadii 1935 ayaa waxa u soo qalab qaatay 3 sahameeyaal oo Ingiriis ah iyagoo doonayay inay cadeeyaan in laga soo noqon karo jasiiradan waxa ay dadku ka aaminsan yihiin ay tahay sheeka baralay laakiinse xakaga sii horeeyay talo waa ay galeen 3 sahameeyaal laakiinse dib dhaaya looma saarin si taalamida saynisyahanada kale ee reer galbeedkuna waxay la soo istaageen bugtoodii iyagoo leh waxa laga yaabaa inay tahay saldhig ay noole cireedyadu leeyihiin alla kuwana waxaas oo dhan ka sii la yaab badani waxa ay tahay haddii la is yiraahdo dusha sare ka sawira jasiiradan oo ay diyaaraddu ay u soo dhawaato waxa ku soo kacaya dabayl iyo duufaano daran iyaga oo ku sababaya in ay qarsoonto jasiiradda oo dhan sawirkii ugu fiicnaa ee jasiiradan laga qaado abid waxa ka muuqay mutalayaal qadiima oo si la yaab leh u dhisan walina cidimay ogaan sababta ay dadkan uga soo noqon layiin malaha waxaan filayaa inay Soomaalidu ka soo noqon karayso meeshaas